ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سودو هذا دوك مال كستو كجوكتين channel كان قداونيسين وعشورة official سودو هذا أصحابتي هدي أي وعصبتها channel كيga بوقو وأنا كاغا مهد إلنا إن ما أنت وحنوضا فيديوهاش هور واشالك أما كفتن كهاي ما أهنو حوضو ما أنتو حنكهدلي رباه إن ودا كان أنجوجنو أرين كدعدي إن شاء الله سو ذا دواء سحبتي ذا هدي أيوة عصبتها channel كيجا سيدا أنكو شيء سبسكرايب لايك شير إيده سحبته هري إلى جوكتنا مركز توي ذي كجم هذا الشيء إن شاء الله وأنكم مهندسين سيدا وناكسن أو إلى سو أم بقادين أما إلى أم بقادين مركز تو إن أرين كان أنك هذلايو إن وأرين حساسي أو كدعي إن عاصمة الوطن كأو aan joogno Stockholm oo qaasatan la yiraahdo Ringaby waxa ka dhacday arin la yaab leh arinkaas hadii ay idin guda galo 20 sano ayaa nin ilmo kufsanayay oo ilmo Soomaaliyeed ku jiraan sida la sheegay oo ilmo ajaanib oo nooc kasta wala ku jiraan ilmaha wadanka u dhashay ahaadano ama wadamada banaankiisa ha ahaadano nooc kasta oo ajaanib ah oo markasta oo kufsad jiro abuse jiray marka arinka hadii la sii guda galay cunug yar ayaa ka shafay ayaa leeyahay ilmaha markuu oo maarkin oo gurigoos wuxuu haajiray banooni ama waxyaabo lagu ciyaaro ilmaha inuu ka caawiyo waxyaabahaas arfiteed wax la dhahayo ama arimaha oo waxbarashada kale waxyaabahaas ay u qaabishanayaan la dhahay kadibna wuxuu sameey jiray ilmaha oo wadi jiray gurigiisa u geey jiray ama qaybta ay markino ilmaha markay qobeysanayaan oo kale iyo waxyaabahaas ayuu sameey jiray oo ilmaha xoogaa luuqa ku laabi jiray marka hadda cunugan wiilkan Soomaaliyeed oo ka hadlayo oo Soomaalida loogu furay arin degdeg ayaa ka sheekeynaa insha Allah xoogaa yar insha Allah hasan dhagasano wiilkan waxyaabaha aniga asaga iga sii khibratoon caasimada degan nin wax yaqaan oo lala soo xiriiray marka bal ila dhagasada insha Allah wuxuu dhahay ay nolosha shaqeeyaan markaas arintaasna waa arin ay dabi baarista iga codsadeen inaan gaarsiiyo waxyaalaha sir ah oo aan sheegi karin way sheegaan laakiin waxyaalaha qaar oo aan dul maraya sababtoo aan markii la soo xidhiideen micnaheedu waxa waaye ilmo Soomaaliya ku jira marka la yiraahdo Soomaali ugu u sheeg dadka markaas ilmo Soomaaliya ayaa ku jira arintan iyo ilmo ajaanib arintu waxay dhacday nin caan ka xaafada oo aad looga yaqaano oo xataa folkatus rinkidi uu fooranda ka ahaa oo ayaa muddo 20 sano ah kufsan jiray caruurta ama farxumayn jiray folkatuskaas uu ninkani ka shaqeyn jiray waxa imaan jiray ilmo badan oo ilaa haddana taga oo wax ku barta activiteed ku sameeysta iyo arrimo noocaas waalidiinta Soomaalida dhaqankooda wuxuu yahay marka ilmaha meel geeyaan badana waalidiinta dhamashay laakiin badana waxa way marka ilmaha meel geeyaan activiteeta way ka tagaan hadhow ay soo doonaan ama ilmihi waxay yiraahdaan soo dabar ilmo 10 jir ah oranay soo dabar ilmo 8 jir soo dabar ninkan wuxuu ka faa'iideystay ilmo kaligood socda aan oran maayo ilmaha waa Soomaali waa ajaanib laakiin waa ilmo ninkan waxa kaloo gurigiisa u wadan jiray caruurta nana ayuu siin jiray PlayStation buu kale dheelo oran jiray activity yaal kale ka helaan buu ku soo dagan jiray caruurta ninkan waa maqlaysiina umaleyna Soomaaliya ana korta waxaan iska nahay qurbaha dadka jooga maqana jooga ayay u badan yihiin marka insha Allah tan waxay u tahay wacyi gelin kulli anaga Soomaali ayaan ka dhalana Soomaali ayaan nahay Soomaali ayaan ku aftirsanaa magacayna meel islaamna waa gala marka Soomaaliya arinkan arin oo xasaasi waa u jeedin hadda 20 sano oo ilmaha saas yeelay oo abuse ay sheekada hadda meesha ku fashilmi doonto
bal ila sii dhegasada waa arin aniga aan la yaabay marka aniga waxaan jeclaystay inaan bulshada Soomaaliyeed oo ku xiran ama aniga igu xiran ama aniga aan ku xiranahay inaan la qaybsado ayaan jeclaystay marka ila sii dhegasada insha Allah waxa meeshan ka dhacayo taasna journaalka ku qoran tahay arrimahan kale waa la yacaday ninkan ma ku soo qirtay waxyaalaha ilmaha ku soo dafi jiray ilmaha gurigu geystaa wax rabo ka samaystaa u soo daaya marka waxa calool xumo ah in waalidiinta xaafadda meel kasta ha noqoto in aanan ilmaheena ka warhayn waraysanin meeshuu tegay wuxuu soo sameeyey meeshuu ku maqnaa marka arrinta ugu naxdinta badan la waxay tahay filimaan baa la helay ninkan gurigiisa waxaa laga helay cajalado filimaan ah marka wixii waa la cadaynayaa hadda dowladda baarista waxay ku jiraan inay ilmahan ay soo helaan ilmaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay waaweyn yihiin oo ay 30 sano ay gaareenba qaarkood waxaa laga yaabaa dee wax 20 sano ka hor waxaan ka hadlayno ilmo 10 jir markaas ahaa hadda 30 u gaaray laakiin arrintan way socotay markaas ninkan Fortuuskan uu ka soo daban jiray caruurta wuxuuna ka daban jiray meelaha kale activity-ka lagu sameeyo nin aad loo jeclaa buu ahaa marka innagana ummad waxaan nahay bidraag ilaahay ku saliday intaan bidraagii waxay bixin jireen bari dhexdaas urur baad la imaanaysaa bidraaga lagu siinaa activity-ka lagu sameeyaa meesha dhan waa isla boodi jiray marka bidraagga inta bursanayseen iyo inta lacago ninkan uu idin siiyo ama arrimo kale iyo maasi kale idin la dal ma la yaabteen yaa والله runtii suwaay ilmaha bidraaga lagu dalbado ama meelaha waxa kor la geeyo qaarkood waxa waay anaka warkama hayno aniga adduunka horta waxaan u necbahay meelaha banooniga la iskugu xiro ama waxa kor la geeyo ilmaha markasto ma jecli gaaladan lug ayaa igu jirto iyakana danay leeyihiin anigana danaan leeyahay marka waxa waay inaan kala danaysano wax ka fiican adduunyada ma jirto marka aad iyo aad aniga kliibka xala ayaa arkay maantana waxaan jeclaystay inaan idin la qaybsado ninkiina halkan ayaan soo saari doonaa insha Allah sawirkiisa balaayada foosha xunne oo waxa kor ilmaha masaakiyaasha oo abiyista jir markay ilmaha waxa waay markii qalbiga laga xado aad ay u dhib badan tahay marka Soomaaliya la is ogaado adduunka saan u sii xumaaday bal arinta oo ku fashilmi doona la shaqeynay ninkan aymiinu ka shaqeysanay marka waxa waaye arrimaha foosha xun leh ka dhacay rinkibi oo aynaan war ka hayn oo 20 sano ay socotay marka ma dhici kartaa arrintan inay ka jirto xaafadaha kale ma dhici kartaa in iskoolaadka ka jiraan ha dadkiina rinkibi degan iyo hoosbi way dhacday 10 sano ka hor way dhacday 8 sano ka hor way dhacday dhowr sano ka horna way dhacday ma markii ugu horeysay marka arrintan waxay tahay ilmaha يعني markii la fiiriyo aad bay u adag tahay inay ka hadlaan arrimahan oo kale markaas arrintuna waxay ku noqonaysaa adeeg dawladda inay ilmahan helaan laakiin hadda waxay heleen cajaladii hore ee kaseedka ahaa la helay sawirada la helay qof kale oo arrintan la ogaabaa la helay marka hadda dawladda waxa ay raadsan doontaa dadka qaarkood ay raadinayaan dadkii arkay فهمتين أمالها والله وحواي أنا قدرت أدو سيجيد وينا نهاي جانبتنا وحواي سيدا دو كم فكرت بربلانك كسوس عضا إيه وحياباكو إما كرا وحالي كفكرنا سيدا نولش الله ماريا سيدا الله قلوك الدواء أرضا مركا والله أرن آدي آد وحساسي واي آدي آد ولب بدن هذا فيديو آد أيو ديري هاي فيديو أيا لما يسكر معهن لكن إن شاء الله وحاس كدينا إن شاء الله قيبها أقوم مهمسن إن كهلنا. وما كأريد تصوير يان لقى بقين فضيحة لاس. من كان الصومالي معها وانين عدانا وسوي شوي نادي كلكم ما بيعيس يصور كيسة إن أنا قاعد شايفه وأنا قدي مرة وين على قد بين ماذا لكن أتاس في فورندك أها Fortuus bard wad helaysaa odaygan waxa waaye oday caan ah oo la yaqaano oo xaafadda deganaa aniga shakhsiyan ninkan waa naqaanay yani haddii aan kula aniga waa isla kulannay marna
dhulkaalkaasna wada shaqayn way naga dhexayso maraan dhulkaalkaas ka qaadanay marka ninkan waa nin wuxuu ahaa degenay war caruurtiina ka bakhaylin jirin laakiin waraysta weydiiya hadda waxba kama jiraan guraadan arrintan ha loo sheegay inuu jiro nin xaafadda deganaa oo arrimaha ka bilaabay 6 sano ilaa 12 sano qaar uu shiray uu lacag siiyey oo olaalay qaar marka ilmaha yaanan lagala bakhaylin kaamarada markaan sawiraayo waxaan maqlaayay ninaa cabitaan sun ku jirto siinaya waddan kale laga sheekeynayo caasiyadaas ninaa cabitaan suna siinaya ilmaha muslimiinta oo wareejinaya biyuu siinaya ilmihii caaga ku jira way cabayaan waa u dhamaatay marka waa fahanteen umleha wallahi arrinka aad aan ula yaabo waxaa waaye mataqaana cunuga hadda kashifay waxa waaye waa cunug yar oo ilmahan 7 ilaa 8 camal jiro ayuu wuxuu lugta ka murgacday la lugta markuu ka murgacday wuxuu yiraahday soo bax gurigeyga halkan ku yaala ii raac waxaa taalo masaajo murgacashada aad ugu fiican oo lugta lugta taasan ka soo marinaa waana kaaga soo masaajeynaa soo bax iraac cunugii waxaa la sidii ayuu ku raacay markuu meesha tagay cunugii wuxuu yiraahday dharka dhan iska dhig lugta si aan kaaga jimciyo kaaga masaajeeyo marka cunuga waa ku dagaaliyay wuxuu yiraahday maya halahan waa iga mari kartaa marka cunugii inuu taataabanayo iyo waxyaabo kale dheeraad oo sameeynayo oo dareemay aliir markuu dareemay cunugii fataq buu iska yiraahday boorso miya maqa wuxuu watay hore u qabsaday oo ka carar marka asagoo ka daba qaylinayo ka carar albaabku iska furo ka carar cunugii sidii waalidkiis markuu u tagay wuxuu sheegay wixii oo ninkaas ku sameey rabay oo sameeyay ayuu sheegay marka waa cidii waa bixeen booliiska ay almeel gareeyeen saas ayuu sameeyay ninkaas cunugeygana saan ayuu sheegay ninkaas hala baaracmo ninkii kulay ma aqana hore ma takana hore u tiilay ma sheegi kari laakiin takanadii cunugaas ayaa soo kashifay 20 sano arrinkaas qarsanay cunugan ayaa shirtaas soo kashifay marka waa arrin lala yaabay oo inaba laga filaynin barkii wuxuu ahaa liiray meelahaas oo ka shaqeynayo arrimankaas banooniga iyo waxyaabahaas oo ilmaha artificialka oo siiyo nin aad ay u jecel yihiin bulshada shacabka oo markaas ciyaalkaas yaryarka iyo dadka oo la shaqeeyaba inaba nin aan laga fili karin oo ahay marka adduunka waxa dhici kareen ma jirto marka Soomaaliya waxa waaye aniga intuu hadda codkayga gaaray ayaa la hadlayaa ilmihiina ogaada ka taxadira meeshay tagayaan ama meesha aad geynaysiin ama arfiteetadiya meelaha ilmaha ay tagayaan ay sal ku leeyihiin iska ogaada oo iska kontarola ilmahana la sheekaysta kulli ani hadda ilmahayga ninka ugu yar ayaa 14 sano jiro intii horena oo karaankayga ahaydna waa soo dadaalay haddana intii dhiman ilaahay ha ila garab galo ininkana waxaa idin kugu soo duceynaa qof kasta oo baldaadkan gaalada ku haysata inuu ilmaheeda ilaahay u xafido oo xaafidullah naga dhigo ama wadankeena ha ahaato ama wadan kale ha ahaato ilaahay meel kasto tilaabta dhigayn ilaahay ha nagu xafido quraanka iska aqrista ilaahayna ha nagu xafido marka clipkan inta ayaa ku soo afjaraa waxa idin la qaybsanayay dhibka ka dhacay ayaa idin la qaybsanayay marka ilaahay amuraha noo fududeeyo marka insha Allah hadii ilaahay yiraahdo clipkan clip ku xigo inta ku kulmayno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.